waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood kulanti wanaagsan oo wacan meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aanu ku waraysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska hor keeno waxaan weydiinayaa Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jilaayada Maxamed soo dhaw TV Universal markaa Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay Allah ku casmo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayana aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtahay naga kor qaado tacsida horta waan diraya mar labaadka si xun wuxuu sheeg sixir wuu ka daray dab munaafaqshiday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan oo tacsiye baan diray dabadna dad ba ka faa'iideysto xagga kale ka rugay waxaan taageerayaashayda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahay inay jeceshiin waan ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsi baad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegay hameen horena waad sheegtay xalana waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatada soo gaartay inay ka tacsiinaysan ka xuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad